السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمان si kastoo di maqlaysaan iyo meel kastoo joogtaanba waa muuqaal cusub iyo barnaamij cusub oo ah wadanka Holland sidee ayaa ku lumin kartaa guriga aad ijaarka aad ku jirto maqaalkan kolley wax badan baa kaga faa'iideysan doontaa insha Allah maqaalka inaad duubo waxay ugu qasbay waalidiinta waxaysan ogeyn wax badan guriga markii lagaa kireeyo oo guriga aad kireysata waxaad galaysaa wax la dhahayo heshiiskaas oo ah inaad gurigan tahay tenant agreement luqadda Englishka loo isticmaalaa marka UK meelaha joogta waa huru contract wax la dhahay sameynaysaa over income contract saxiixaysaa warqadaas waxaad ku saxiixdo ayuu gurigaada masiirkiisa noqon doonaa wali fahmi Soomaan hadda adoo single aad saxiixdo xaaskaada ku jirin berito adiga hadii wax kugu dhacaan guriga waa laga saaray reerko dhan caruurta laga saaray kulli waa laga saaray arrimahaas waa muhiim marka taas waxay ku dhalisay in barnaamijkan balka firgareeyo oo ka soo bilaabo aasaas ilaa dhamaad ku soo dhawo walaalkii abalaasha dhageysan doonta barnaamijkan meel kastoo ka joogtaba wadanka Holland waxaan ka hadlayaa wadanka Holland insha Allah UK-na maadaama Ingiriis deganaa jiray waxaan isku dayi doonaa bal heshiisyada la gala iyo qayaanada ku jirta in mararka qaar walaalaha qaar u soo gudbiyo inkastoo hadda dad Ingiriiska nooga socda aysan jirin gurigaaga sababaha kugu weyn ama ku weyn karto wadanka NL Holland loo soo gaabiyo sida ku muuqata halkan markaad wadanka ku cusub tahay inta badan wuxuu ka soo bilaabaa wax lagu magacaabo offer centrum laga soo bilaabaa laakiin dadka inta badan hadda waxa la geeyaa trouble wax la dhahayo eltaas kala ziyaado way trouble la geeyaa laakiin dadkeenii hore waxa la geyn jiray open centrum oo ah meel xarun bilow ah oo dadka ay ka soo bilaabaan marka dhowr magaalo ku yaali jiray wadanka laakiin hadda central meesha laga dhigay tii bareeda Raasbeerkan waa la burburiyay tan kaliya hadda lagu soo reebay kadibna dadka la sii qaybiyaa waayahay trouble markaad ka soo baxdo waxa lagu geeyay ACC waxa loo soo gaabay Azul Sukuri Centrum intaas isla fahansan oo malaynaa koobaday leedahay oo meeshaad ku sugayso dacwadahaada iyo reportkaaga iyo sharciga kadib markii aad ilaahay wax ku sahlo oo sharciga hesho wax lagu geyn doonaa aad mudaysan doontaa in aad huru warning guri kira guriga koreeda contract baad galaysaa adiga waa cusubta wax badan ma ogid guriga kirada marka waxa laga rabi doonaa waxa saxiixi doontaa wax la dhahay huru contract marka huru contract saaxiido gurigaada waxa laga baahan doonaa inta ku qoro huru contract ama huru warning wax la dhahay guriga aad kireysanayso guriyaha laba nooc waay guri adiga aad kireysanayso iyo inuu noqdo cob warning de kan waa iskii loobaysaa qof wadanka ku cusub ama waqtiba joogaba hadduu doono gadashada guri niyada ugama jirto asbaabo jira oo diintaada asbaab ah oo inta badan inay jiraan ribo la qaadanayo reenta wax la dhahay taasaa marka diideysa marka markaleenu ka hadlayna sheekadaas asalka taas wax ku dhiiranayo ma jira inta badan inkastoo wadamada af Ingiriiska ku hadlay ay sheegaan dhahaan waxaa jira wax la dhahayo Islamic funds wax la dhahayo bangiyada islaamka afangara sheeko kale waa markale u baahan tahay barnaamijkaas way guriga huru contract markaas saxiixdo gurigaada furaa lagu soo siin doonaa guriga waxyaalaha wadanka Holland ee wadamada af Ingiriiska ku hadla kaga duway waxa kamid ah wadanka Holland guriga wax ma yaalaan everywhere sufur carpet inta badan ma hadaad overname ku qaadato waa gooni qofka hore kaaga tagay laakiin sida u badan tahay guriga carpet ma yaalo talaajo ma taalo sariir ma yaalo guriga waa sagxad qaarkood wuxuu ka rabaa in darbiyada feerfamura sameeyso darbiyada rinjiyeysa balomir inaad sameysaa waraaqo ku dhejisa shaqo badan uu kaaga baahay qaarkood qofkii nasiib lehna oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyena uma baahno oo wixiisa waa u diyaar guriga alaabtiisu iska dhigan marka guriga markaad kireysato waa guri leex ah kontraadka markaa furaha soo qaadato kadib guriga waxaa jira wax la dhahayo khaas ana electricity
shirkadahaas marka adiga inaad la xiriirto waayo shirkadaha kugu dhow ood ka codsato as leedahay tee ugu fiican tibkan ku siinaa waxaa shirkadaha cashar gooniga ka sameynaa sanad kasta markii la gaaro kontaraadyaa jiro sanad 2 sano waad ka bixi kartaa shirkada rabto waa geli kartaa marka qaasi electricity inkastoo inta badan hadda gaaska inta badan meelo badan la joojinayo gurigaada marka gaas electricada bixin doontaa ogow oo bil walba biilka ka mid yahay waxaa lagu siin doonaa ka bacdi qamaynta blastina bixin doontaa ya iyo waxaad bixin doontaa biyaha waatarka haalahaas keli kuma bixinaysa waxaa bixinaysa wax lagu magacaabo huro bitaling guri kiradiisii 600 oo ahaa laga yaabaa marka haddii lacagtaada ay yar tahay oo qiimo ceerta aad qaadanayso ama lacagta outcarinka lagu magacaabo waxaa xaq u yeelanaysaa in deel funhouse guriga 600 oo ahaa 300 ay ka bixiyaan blasting dinist oo huro subsidy wax la dhahay aan faraaqina sameeyso way shaqo gooni waa isagana qof yaqaan iyo dad yaqaan iyo hay'adaha local teamka waa inay ku caawiyaan hadda luqadda aqooni marka huro bitalinkaas deel funhouse bixinaysa haddii aad qof shaqaysanin aad tahay oo qof ceer qaata ama wadankii ku cusub ka bacdi waxaa laga rabaa qusunhayd faseekirin caafimaadka in balab lacag ka bixis waxaa jira basis faseekirin wadanka Holland oo farbilaqti way haddii aadan lahayn faseekirin aad ku jirin faseekirinkana wuxuu kugu qasbaa inaad house artist ka soo qorto inscription house artist inaad samayso inscription house artist haddaadan lahayn qof walba u digaya isbitaal lama tegi kartid emergency ma lagu geyn karo sababtoo sharciga wadankaas saasa ilaa meel qeexeedeeda ay ugu talagaleen dadka qadka ka baxay ama qadka ka dhacay hebel qadku ka dhacay ma maqli jirtaadi sidaasoo kale dad saasaa jira saacado koobana la furaa qeexeedee qiso yaab leh waa hadda kahor nin soomaali maraan kaam tagay igu dhacday oo ninka xanuunsan la yiri ninka qaad oo isbitaalka markaan geeyay waxaa la yiri hoos arti ma leeda maya waa nin shaqayn jira oo maxaa jira ma jirto hoos arti ma laha okay faseekir ma ku jirtaa ha faseekir waa ku jira waa kana waxaan ku qasbanaan inaan qeexeedee geeyo marka ogsoono qusanad faseekir waxa kale muhiim ah oo ilowsiisiin oo muhiim idin ah dadka Holland ku noolow bikharaaf faseekirin dugtaada inaad sii bixiso waxaa laga ilowsiinayso laakiin geerida waqti kugu imaanayso lama oga hodan ceerta iyo dowladda ka biximayso dowladda ceerta waxay ugu talagaleen qarashaadka bixinaa dadka inay iyaga iska bixiyaan dowladda haddii aad dhimato lacalla waa in lagu soo togsado muddo meedkaaga yaala ee dhahaan lacag kremiyeer bixinayna lacagta iyaga bikharaaf ma bixiyaan kremiyeer wax la dhahay oo ah lacagta qofka markii la gubayo lacag 2500 meelahaas laga yaabaa inay budget soo ogolaadaan marba qabeetiyada ku xiran tahay qabeeti kasta saas waa laakiin intuu aan deganahay 600 ka badan ma bixisaba sida daraadeed qabeetiga sharci u yaalay ku xiran tahay ogsoono marka fadlan iska gal qoba iyo kuwa Soomaalida iyo kuwa kale haddii Brabant joogta ay doofan xarun ku leeyahay kuwaas gal insha Allah oo ku raqiisan gobolka Brabant kaliya haddii wadanka inta kale joogtana qoba iyo kuwaas inaad gashaad ku qasbantahay waxa kale u baahan tahay wax la dhahay labor underhout haddii kale berito waxa la leeyahay hebel dhintay ha loo qaraamo marka duugtaadii waxa xayirnaanaysaa in qaaraan lagu raadiyo arin dhib badan noqonaysa qaaraanka marka leey maaha inuu tolkaaga wax ka bixiyo oo meesha tol wax iska bixiyo waa farqo yaris dadka magaalada kugu degan hadda naamiyaqan aan deganahay qofkii ku dhinta reer naamiyaqana laga rabaa albaab kasta la garaacay wax qabiil la dhahay ma jiro qabiil intuu isku tashto dhahay reerkeygan aniga aan xabaalaha ka bixina kullay aniga waxaan maleynaa inay farqo tiris tahay ma garan hal reer jiro inaa inta meesha ka sheegana ma doonayo reerkaasaan tuhmayaa bas inta kale kullay wax leh arrintaas ma u maleynaa inay jirto marka qabiilka markaan soo dhaxgeliyo waxaan rabaa inaan caddeeyo qabiilka adigu kuma soo dhoofin halkaana kuma keenin bas waxaa lasku loogu muhiimsan litacaarafo inaa xididkaaga iyo wixii qaraabo kuwa inaad ku xiriiriso muhiimadda ugu weyn waa intaas laakiin haddii tolka ay wax fiican samaynayaan oo arrimahaasi ka shaqeynaya waa wax wanaagsan hadday jirto ya haddayba hee jirto waaya yaan ka bixin mawduuca 11 underhout cost lacagaha ku bixin doonto waxaa ka mid ah 11
guri markaad degto qarashaadkaasaa aad bixin doontaa ogsoonow qarashaadkaasna fadlan qaladaadka dhaca waxaa ka mid ah dadkeenii lacagta markay bisha usoo dhacdo lacagtao dhan bangigu kala soo bixi ama reeruhu u dirsan wuxuu gelayaa akhtaristan deen lacagihii gaaska ma bixinayo korontadii ma bixinayo war lacagtii lagu siiyey 1000 eera laga yaabaa in lagu siiyo tusaale 800 ugu yaraan ilaa 700 waxay aadaysaa jeegada aadaysaa 300 oo soo hartay waxaa loogu talagalay in adiga cuntadaadii ku noolaato oo transport waxa u baahanta ka raacato telefoon iskaga bixiso marka waa nolol iska ciriiri ah waa sax waa bilow waay sida daraadeed marka ha u qaadan lacagta bangiga ku soo dhacaysa kulli waa wada xawilay adiga iskuul jahaas gelin fadlan adigoo maadsan intaas inta ku soo dulmaray waxa marka muhiim ah haddii intaasaan kuu soo dulmaray oo isla fahanay waxaan u gudbaynaa marka qaybta ku xigto ah maxaa waaye marka waddanka Holland saa la socotaba waxa active ka ah ay yiraahdaan sida xisaayaadka sheegaya waa inkastoo 1300 ahaa jiray waxa loo yaray ma garanayo 2060 iyo voting corporation waxa la dhahaa waddanka Holland inta badan waa private sectors dawladda ma laha guryaha shirkadaha iska leh shirkadahaas dawladda ay kula xisaabtantaa inka marka hay'adda arrintan soo bisoon ka soo qaatay waxa la dhahaa inspectie leef omgaan aan transport hay-adan waa hay-adaha qaabilsan tareemada iyo taksiyada iyo dadka saacadihii shaqeeyaan inta badan control ninka meesha joogo waa nin guri laga soo saaray sida sawirkaaga muuqda marka xasuusno annaga hadda gobolkeena say sheegaya xisaayaadka CBOskooda 43 wonko brasi ayaa ka jiro waa provinsiga Gelderland waddanka Holland wuxuu ka kooban yahay 12 state saa la socotaba ama 12 province inuu leeyahay 12 maamul goboleed waa waddan aad u yar marka saasay la yiraahdaan 12 kaas oo qaybiyaan waayo provinsiga marka saas uu leeyahay maxaa laga rabaa marka haddii guri ilaahay kuu saalo waxyaalahana laga rabaa inaad iska ilaaliso fadlan kumana sii dheeraanahay koo waxaa laga rabi doonaa adigoo maasan bixi la'aanta kirada guriga waa lagaaga saaray banaanka lagu dhigi dhibaato dariskana ka seexan waayaan oo report dheer laga qoro oo collective in the buur la dhahayo iyadana waa gooni way Soomaalidana waxyaalaha caan ku ah waxa way habeenkii aad baa codkeena kor u baxaa ama guriga hortiisa istaagayna dadkan kula hadlayna dadkan dariska in la xushmeeyo waa muhiim waa diiniyan xaqu kugu leeyahay waxa waaye nabiga wuxuu yiri man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim jaarahu marka muhiim ay ku tahay dariska inaad adiga ma jeclid adigoo seexanaysa in banaanka la soo istaago oo maantana lagu qayliyo oo berina shaqo leh ma jeclaan lahayn marka walaaladeediyo aad ha looga fikiro dhaqamadii ahaa meelahaas ku hayna ama jidadka la istaaga lagu hadlayay dariska aad degan tahay ixtiraam gooniya laga rabaa dadka salaan maaragtay macaamilo fiican hadi dhaxmartay insha Allah dayaca ama burburin guriga dhibaato ku sameysay burisa qaadani waxba jibini ama guriga soo xil isticmaalaysa ma faanti ama biyaha furna laga tagay ama caruurta ka tagay dariska kale u galay maalinka laqtiga la keenay arrimahaas muhiim waa waxyaalaha qodobka saddexaad ee laga saari karo guriga deganaansho sharci darro ah guriga dad sharci darro yaala degan mesela si joogto ah qof kale ku wareejisay waa baxday waddanka iska aad Soomaaliya qof kale waxa tiri gurigan deganow ee maaragtay waa kaas qofka dejisanay qof anshax leh maahin haddii qofka aad tiraado war 3 bilood maqnaanaya walaalka uu yahay gurigan ninabad ku sii joog ee ahaan leed fiicnaan leed haddii qofkii marka dariskii iyo dadkii dhibaateynayo waa wareer waay marka si sharci darro ah qofka marka guri leedahay oo magacaada ku jiro waa inaad shirkadda u celiso guriga haddaad u celin magacaada ku jira lacagtaada laga rabaa kirada adaa laga rabaa ugu soonow taas marka waxa u baahan tahay bangigaaga inay lacagaha soo maraan qofkii walaalka aad la heshiisay guriga dhowr bilood sii jooga intaad fasaxa jirtay waxa la rabaa in bangigaada lacagaha laga goosto adina online ka jeegareysay in lacagta la bixiyo in kale hadii kale iskuul diya galaysa waxa kaloo sharci darro taas ah waxa kaloo muhiim ah qodobka shanaad ganacsi sharci darro ah ama heshiisa xitaa macnaha
dembi kugu noqonaysaa. maxay tahay kasoo qaad gurigii waxyaalo sharci daraa lagu iibinaya, qaad baa lagu iibinaya ama darooga lagu iibinaya ama waxyaalo kale lagu iibinaya. waxyaalahaas marka waxyaalaha keenaya waay. ama waxaa dhici kara meelaha qaar xashiishada lagu abuuraa. xashiishada waxaa lagu gartaa inta badan guryaha, inta badan xashiishada nalalkooda habeenkii haddii banaanka laga fiiriyo nalal waaweyn oo fuulay u baahan tahay, marka sidii beer oo kale camal, marka sharci darra hadduu noqdo. waxaa kaloo muhiima gurigaada aad ku weydiin mulkiilaha guriga iska laha, shirkaddii guriga iska lahayd inay codsato ya inay heshiiskii aada gasheen contracti joojisay dhaheen gurigan waxaa laga helay asbastia laga helay, gurigan waxaa laga helay skimila laga helay oo fungus wax la dhahay, waxyaalo madmadow waa kasoo baxay, caafimaadka ma fiicna, ama guriga waa u baahanaya waa la duminaya. marka waktigay kuu qabteen guriga inaa uga baxdo waayo guri kale raadsata. laakiin wadanka Holland inta badan hay-adaa u dhexeeyo, waa in guri kale lagu helo, dheel lagaagama saari karo milkiilaha hadduusan cudurdaar sharci ahayn kaama saari karo guriga. heshiisyadaas qur'aan sheeg wuu kaaga saari karaa. heshiisku meelgaarka oo dhammaaday kasoo qaad wadanka, wadamada qof private haddaa ka kiraysatay ee dhibaatadaas dadka qabaan, wadanka Holland inta badan shirkadaa u badannahay. laakiin qof turkiya haddaad guri ka kiraysatay oo sanad heshiisaa tiri gurigaada, ama kasoo qaad nin guri soomaali iska lahay oo safar aaday oo yiri muddo sanadaa maqnaanaa gurigay sii deganaaw, hadduu sanadka dhammaaday gurigiisu waa inooga baxdo ya, haddii waqti cayiman lagu qabtay. marka heshiiskii hadduu dhammaado guriga waa lagaa saari karaa, waaba qofka privateka ka hadla oo shirkadaha ahayn guryaha kaa kirayna. waxaa kaloo lagaaga saari karaa amar maxkamadeed. amar maxkamadeeda lagaga saari karaa. nin inaaga ahay waa wada deganaayeen, waa isqabeen, waa isku dhaceen, waa la kala tegey, marka mid ka mid waa laga saari. marka ya tafel bailkaaray dhahan, marka kaasna waa sharci jiro waaye in qofka maxkamadda ay kaaga saarto ama dembiye kale lagu helay qofka looga saaro guriga. sharciga marka arrimahaas waa arrimaha ugu muhiimsan ee guriga lagaaga saari karo, inay ku feejignaataa lagaa rabo. waxaa jiro sharci ah halkaan lagu sheegin oon rabo qodobkaan ugu soo qaatay igu muhiimsanaa. muxuu yahay? guriga hooyaa tahay, hooyo waxaa tahay allen stand, hooyo keligeed ilma haysata oo ilmo korsanaysa. habartii gurigay degeyn iyo caruurtii, hooyadii waa dhimatay, ilmaha guriga waa laga saara. hooyadii waa dhimatay, ilan contracti iyadaa ku qoran. marka waxaan rabaa oo qodobkan usoo qaatay barnaamijkan oo igu muhiimsanaa waa arrinkaas. ilmaha waa laga saaray guriga, ama faamiliyada kale ha loo geeyo ama meel kale ha loo geeyo, gurigaas ma deganaanayo. kasoo qaad adii hooyada keliyaa degan, haddii hooyada ay dhimatay guriga waa lagaa saaraya automatically muddo bil 2 bilood intii ay tiiraanyada ku haysaa lagu daynaa, wixii ka dambeeyo waa in lagaa saaro. arrintaasna dhibaatay leedahay. waxaa ka mid ah adii walaalkaa gurigooda degan, walaalkaa gurigaa deganaa jiray, adii adreesa ku noqotay, waa la soo degtay gurigii. marka walaalkaa tii allah u timid, kontaraadka asaa ku qoran. waxyaalaha horena idinkugu sheega waxay tahay huru contracta, heshiiska gurigaaga qofka ku saxiixan ayaa gurigaas awood u leh ku takrafalkiisa. marka waxaan ku taliyaa ninka iyo gabadha iyo ninkiis qabo, haddii aad guri degaysaan heshiiska wada saxiixa, waxaa noqotaan contract ail iyo tubey. haddii mid ka mid wax ku dhaco kan kale guriga inuu u haro. haddii laba walaalo tihiin, ana caruurteeda ku sameeyeen, laba walaalo haddaad tihiin labada waa inay contracta saxiixaan. haddii kale ilmaha kan kale waa laga saaray haddii kan kale wax ku dhaco. ma fahamte? arrintaas muhiiman waxaan usoo qaadanaya dadkeena kuma baraarugsano. waxaan rabaa mawduuc kale oo halkaan meeshas ku jiro inaan halkaan aan ku baraarujiyo waalidiinta soomaaliyeed ee caruurtooda waaweyn. hooyada soomaaliyeed ee cunuga 18 sano jiro, 16 sano dare ee gurigaaga ku nool, cunuga waa koraya, gabadha waa koraysaa, maxaa sugaysaa? waxaan la rabaa inaad u diyaar garayso laba ka mid ah inaad bonus zuukanka ka qorto. markaa ka qorto
kombanaasi aad ka dhigto incomekiisa mid ka mid waa yarya waxaa laga yaaba 12,000 inay soo gasho iyo kan kale sidaasay guri ku heli karaan laba walaalo ah bonus sugan inay iska dhigaan oo ah laba qof ay guriga raadinayaan mawduucaas mar gooni inaan ka hadlay ku fiicneyd sababtoo waa meesha ugu muhiimsan waalidiin badan oo waxaa jira wadanka degan caruurtii waxbarashadii dhameeyeen qaar 25 marayaan qaar 23 marayaan caruurtii guriga waa ku badan tahay kan uu shaqeysana inuu shaqeeyo rabaa kan inuu shaqeeyo rabaa income-kii ay shaqeynayeen hooyadii guriga uu saameynaya guriga income badan haddii caruurta soo galayso uu saameynaya waxyaalo badan oo lagu siin jiray hore subsidiga iyo waxyaalahaas go-ayaan si marka waalidiinta waxaa la rabaa inay caqli yeeshaan oo fikiraan ilmahan haddaad program u samayso dhaqaalaha guriga kaba is fine laakiin inta badan ma kabaan inta badan shilinkeel laguma karo ilmaheena intuu ku koray allaha barakeeye in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane markaa saas leey waxa waaye maaha caruurta inay xun yihiin laakiin bini aadamka o dhanaa ku abuuran inay maalka jecel yihiin oo xisaabta jecel yihiin ilaah qur-aan ku tilmaamay wainahu lixubi اlkhayri lashadiid wainahu calaa dalika la shahiid marka maalka waan jecelnahay zuyina linnaasi xubu shahawaati min waa lasoo waday dadku waa loo qurxiyey maalka ragga dumarkaa loo qurxiyey dahabkaa loo qurxiyey waa lasoo waday ma fahante saa daraaddeed marka waxaan saasuu leeyahay war waa arrimo badan oo isdul saaran oo in la kala qaado u baahan caruurta guriga ku weynaadeen ee inkamka badan soo galayo haddii 5 caruur ah 5taba shaqaynayaan hooyadana aysan shaqo haysan ama lacagta beeshin ka qaadanaysa lacagahooda saameynay ku yeelanaysaa sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa haddii ilmihii dhahaan okay anagaa caruurtii ah hooyadii iyo anagaa kabeena wax walba is fine laakiin caruurta inta badan ma sameeyaan culayskana waalidku ku dhacaa marka taas waa culays waalidka ku ah waxaan rajaynayaa mawduucan inuu cad yahay oo ah haddii aad hooyo keligeed tahay guriga ku qoran tahay oo adii bere waxa kugu dhacaan ilmaha guriga waa laga saari haddii aabe keligiis tahay oo guriga ku qoran tahay ilmaha waa laga saari balambi waa laga yaabaa inay dowladda u raadiso qaraabi iyo wax laakiin sida sharcigan kuu sheegi dhowr xaadisaan usoo jooga aniga magaaladan deganahay oo ilmo daris aan nahay oo guryahoodii laga wada saaray oo hooyadood dhimatay oo aan holandees ah oo soomaali ahayn kuwo kalena waa la mid sidoo kale marka ha lagu baraarugo arrintaas inay culays tahay marka aan feejignaanta qaadano wixii aan ogahay information walaalaha waa inla wadaagi waan nidaamka dawliga ka akhrinay ama si practiceeraba loo sameeyo oon arkayno oo qameytiga iyo dowladdaba u filinaya walaalaha waxaa idinkaga tegay dabcan waa idinku dheeray mawduuca amaano allah